ururka samafalka Soomaaliyeed ee Alfa Trust ayaa dhaqaalo gaarsiiyay qaar ka mid ah qoysaska danyarta ee ku dhibaataysan magaalada madaxda gobolka Boqol ee Xudur waxaana dadka ka faa'iideystay isugu jiraan dadka qaba baahiyaha gaarka ah dad agoomo haysta iyo kuwa danyar ah oo dabshidkii xitaa la asnaa Aamina Xasan Maxamed oo la soo wakiishay deeqdan lacagta ah isla markaana ku wareejisay dadkii loogu talagalay ayaa marka hore faahfaahinaysa deeqda iyo dadka ka faa'iideysanaya hay'ad la eero Alfa Trust anina dad aan baahanayay gargaarna aan baahanayay deeqna aan baahanayay xillo toosan oo dhabyaalina ka toostiya nasiib joonagati dad naafe aan shaqaysado korna curyaamiga aan shaqaysado korna ya nasiib joonagati qaar ka mid ah qoysaskii la gaarsiiyay deeqaha ayaa iyagana ka mahad celiyay adduunyo aakhira laayo adduunyaar lamaada dihrood baadan soobi ilaahay jihadiis hanoo tabar ilaahay alle tabar hanoona haayt aday ina maxamed rahe yahay ina mudaarsan wada dunga kara mudaarsan aan wada nanka dhiibir mahadan ka hayna hanoo dhawaato sunana yahay ina dhawaato ku bi dunga kara antaas dhan baahnayn dad uryaan ay shaqaysto koraan dhawaatoosan geek inta dhiibutin an do'ayni muraajo alla weela kala allah si antaas siin halni ilaahi ma hadla siin do'ayni muraadkin alla siin baasidna loo ka sameeyay intara doonto baasid ma intara doonto ulaade baahnaa wal baaga nooba waaysanay noolba waaysanay hanu noolan yatamadan alhamdulillah ulaade shan ulugu shan antaas geek hata geek nool in halan alhamdulillah ilaahay wali ku tuugay muslimiinta haneen gortay haneen lama xubootay aragdeeda horta sidii sadaqa yaraan male adduun iyo aakhiraba in ilaahay ku guulay sidoo kale gudoomiyaha ururka samafalka Alfa Trust Daahir Cali Kulmiye ayaa sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin dadka dhibaataysan waxaan dhibka la qaybsanaynaa walaalaheena Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gobolka Boqol ururka Alfa Trust waa urur samafal ah oo loogu adeega dadka danyarta ah ee Soomaaliyeed waxaan u mahad celinaynaa dhammaan xubnaha ururka oo mar walba u taagan gurmadka dadka Soomaaliyeed ma ahan markii ugu horeysay ee ururka Alfa Trust uu gurmud dhaqaale gaarsiiyo deegaanada hoos yimaada koonfur galbeed ee Soomaaliya iyadoo hore uu ururka mashaariic kala duwan uga hirgeliyay magaalooyinka Marka iyo Baydhabo Muxdin Xusni Xudur Boqol